wasaaradda maaliyadda ayaa waxa ay soo gudbisay jagada booska gudoomiyaha bangiga dhexe magacaabistaas oo ay golaha wasiiradu ay ansixiyeen wasaaradda maaliyadda heerarkii kala duwanaa ay soo marsiisay processkii loogu talagalay ay soo marsiisay shakhsiga ku habboon qabashada xilka gudoomiyaha bangiga dhexe imtixaanaadkii iyo qofkii u qalmay tartankaasi ay ka soo qayb galeen 146 xilkaasi u sharaxnaa waxaa ku guuleystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo shakhsi heer sare u leh aqoonta dhaqaalaha kagana soo baxay jaamacado kala duwan ilaa heerka master degree kaga soo diyaariyay jaamacadda Liverpool golahu wasiiradu wuxuu cod aqlabiyad leh ku ansixiyay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi inuu noqdo gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliyeed waana mahadsantiin